warsidee ku dhacdaa in 3 bilood jaamac siyaad ciidankiisii wixii ay soo diri jirteen in la waayo warsidee ku dhici kartaa in askartii ay furinta inta ka soo baxaan waxay cunaan intay waayaan see ku dhici kartaa waxaan anigu idin leeyahay walow aanan jeclayn warar badan inaan meediyaha mariyo aan idinku kalsoonayno aan ka baqayo inaad waxa weeye dad badan oo iska nuxuus baa jira inaad meediyaha soo gelisan si adag baan idin hadlahaa laakiin ma importigayga wuxuu yahay muhiimadeedu waa tay jaac siyaad marka la ascaanood lagu soo noqdo ee deegaanka la ka qabsado ee la idin jebiyo ee sidii doonada ka yeelo nin wala lacagta dib u dhigatay meeshaad ku cunaysaa adiga iyo sidee kugu dhadhamayso waxaa nasiib darro ah in dhulbahantii intuu gurigeega ugu yimaado jaamac siyaad qaaraankii dhulbahanta lagama hayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka ka xigtana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha SSC intii codkayga maqli doonta gaar ahaan beeshan haddeer aan la hadlayo ee jaamac siyaad ninkan idinla hadlayaa waxaan u maleynayaa codkayga inaad fahmi kartaan waa garaa jaamac garaa Ismaaciil weeye anigu mar baan hadlaa oo jaamac siyaad la hadlaa waa markii koowaad ee gole jaamac siyaad aan ka hadlo sanadka hadda waxa weeye dhow ee halgankii 28kii 25kii August ka bacdi barigii halganka aynu bilaabeynaa habeen baynu wada hadalnay habeenka aynu wada hadalnay jaamac siyaadow go'aan baynu isla qaadanay go'aankaasi wuxuu ahaa oo aynu hoosta ka xariiqnay colaadaas iyo halgankaasi inuu jaamac siyaad ku dambayn doono iyo dadka iyagu deegaanka degan ilaa ceergaabe ilaa muxuu ahaa farhareeri ama waxa weeye waad garanaysaa reeraha ay kala yihiin innagana culays gaara uu inoogu dambayn doono inuu fuuli doono waxaynu isla qaadanay in aynu culayskaas dhexda u xidhanno oo xabadda deegaanka ku dambayn doonta aynu waxa weeye aynaan u kala hadhin qurba joogtooduna waxaad amar nagu siiseen idinka waxaa laydinka doonayaa ciidan iyo calaf annagana waxaana laga doonayaa dhaqaalihii iyo sidii aynu waxa weeye hub aynu iibsan lahayn oo markaa hub aynaan haysan hawshaa waad ka soo baxdeen annaguna hawshayada waa ka soo baxnay haddaba maanta halka ay taagan tahay waa halka aan doonayo inaan ka hadlo inaad isgaadhsiisaanna ay muhiim tahay hablihii jaamac siyaad ee gudaha joogay waa shaqaynaya iyagu mar walba hawlo caafimaad taangiyadii oo waxa u dhiseen meeshii lagu hagaajin lahaa wadooyin ay samaynayaan qarashkaasi waa laascaanood buu ka socdaa hablaha jaamac siyaad aad iyo aadna waa mahadsan yihiin waana ugu hambalyeynaya waxgaradkii jaamac siyaad iyo odayaashiina waad ogtiin waxba ma hayaan laakiin iyaga waxaa laga doonayaa ciidankii iyo calafkii iyana hawshooda way qaateen soomaalidu waxay ku maamaadaa soor baa lagu fadhiyaa sina laguma fadhiyo guud ahaan SSC waxaanu ognahay qurba joogtii in ay dhaqaalihii 25kii August maalintii waxa weeye laga saaray rejiimka Muuse Bixi in dhaqaalihii la joojiyay haddii wax la bixiyana ay yar yihiin waxaa nasiib darro ah in dhulbahantii intuu gurigeega ugu yimaado jaamac siyaad qaaraankii dhulbahanta lagama hayo waxaa nasiib darro ah in jaamac siyaad dhaqaalihiisii gaarka ahaa ee 10 kun ahaa ee beelu isku xukumeen aydan 3 bilood bixin waxaan maanta idin leeyahay maalin hore aan ka hadlay golwadaha maalintaan imtixaanaad ka hadlayna waxaan jaamac siyaadow waxbaynu ku heshiinay fuliya oo golo dhulbahantan Soomaaliyeed ban media idin mari maantana waxaan idin leeyahay oo si gaar ah oo markii koowaad idin hadlo war halganka war 6 bilood cagaha dhulka ku adkay kartaa war waxba inaga gaar inoo ah war deegaankeenii baa la jooga war culays baa ina saaran war dagaalku hadduu dhaco haddii 10 nin dhibato oo SSC 5 inaga noqonayaan waxaasoo dhan weynu ogeyn weynu ka sii tashanay weliba raggii aad ku maagayseen ee lahaydeen garaa jaamacow waxa weeye ee hawsha aad bilowday ka midha dhali baan anigu ahaa anigu waajibkayga waa ka soo baxay ilaahayna waa ogi idinkuna waad ka soo baxdeen 8% war sidee ku dhacdaa in 3 bilood jaamac siyaad ciidankiisii wixii ay soo diri jirteen in la waayo
warsidee ku dhici kartaa in askartii ay furinta inta ka soo baxaan waxay cunaan intay waayaan see ku dhici kartaa waxaan anigu idin leeyahay walow aanan jeclayn warar badan inaan meediyaha mariyo aan idinku kalsoonayn oo aan ka baqayo inaad waxa weeye dad badan oo iska nuxuusa baa jira inaad meediyaha soo gelisaan si adag baan idin la hadli lahaa laakiin mayn bortigayga wuxuu yahay muhiimadeedu waa tahay jaacsiyada wixii aynu ku ballanay inaad fulisaan inaad dhaqaalihii soo daysaan oo reer waliba lacagta lagu xukumay uu keeno waa haddii aad doonaysaan guushii aad gaadheen oo rumoodka u ahaydeen inaad hanataan waa haddii aad doonaysaan dalkiinna iyo magaciinna iyo sharaftiinna inaad ilaashataan waa haddii aad doonaysaan kaftankan aad tiraahdeen maqaaxiyii baanu fadhiisanaayo hadda annaga ugu kaftan badan ugu muxuu ahaa hadal fiican annagaa nala dhegaystaa ay idiin sii socoto xilligii ugu adkaa baa la galay xaaladdu serious bay taagantah duulaamo adag baa laga baqaya sida xaalku noqonaya ilaahay baa og haddayna wiigan gudihiisa dhaqaale ku soo bixin anigu caawa warning baan idin siiyey cid la eedayn karaa iyo marka wax kharimaan cidda eedda yeelanaysaa waxay noqonaysaa guud ahaan dadka oo dhan gaar ahaanna waxay noqonaysaa dadkii dadkan amarka siiyey ee inagu aynu kow ka ahayn ee aynu shafka u garaacdeen ee aad tidhaahdaan wax allaale wixii dhaqaale ku baxaya 10 sanana ha gaadha annaga la diyaara reeryada ha la iska qaado annana aanu ku lahayn waryaara haddeen war go'aanka ma ka bixi kartaan haa war waxaan inaga inagu dambayn doonaan haa war waad ogtiino deegaankeenna hadhowto waxa weeye waxyaalo badan baa iska dhici doona garajaamacow seexo waxa weye daqaaji reerkii hogaami dhaqaalaha ka biqin raggii ugu lahaana waxaanmaya waa maqlayaan haweenkana meel kasta joogaan waa ammaanaya anigu haddeer wax aan idinku sheego oo waxa weeye aan idinku dhaliilo ma hayo laakiin waxaan dhaliil idinyo ah in 4 bilood dhaqaalihii jaacsi aad reer waliba guntiga ku haysto nin walba waxaad guntiga ku haysato oo waxaad biri si xun u cuni doonto marka laascaanood lagu soo noqdo ee deegaanka laydinka qabsado ee laydin jebiyo ee sidii doona laydinka yeelo nin walba lacagtaa dib u dhigatay meeshaad ku cunaysa adiga og iyo siday kugu dhadhamayso war maanta dhaqaalaha la isku qabsanaya ciidana waa joogaa calafna waa joogaaye dhaqaalihii soo dira dowladdaa soo hadhay wax allaale waxa uu cabdiqaadir firdhiyo dhaqaala hayo oo SSC ay u soo dhiibtay oo hadda hayo ma ay jirto wuxuu la yimaadana waa la arki intaa yar cashuurta laascaanoodna waa intuu ku girif leeyahay guud ahaanna SSC haddii alla idmo wafti waa loo soo dirayaa dibadda maray doona oo lala hadli doono idinkana laakiin jaacsiyaado waxaan idinka codsanayaa haddaan garaadkiinni ahay raggaa askarta inaad xoolo lacagta soo dirtaan u soo daysaan 4 bilood waa markii koowaad aan sanadkaa dhow idin la hadlo weli jaacsiya saa loomaan hadlin waa kow intaasaan idin leeyahay anigu waxba idinkama rabo aniga waxba ima siisaan waxba idinkama rabo raggaa waxa weeye aynu dagaalka gelinay aynu dabkii xaabada ku shidnay wixii aynu ugu shidnay ee idinku aad kow ka ahaydeen baa laydinka doonaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu